aloe vera juice iyo khalka tufaaxa labadooda keebaa miisaanka si zaa'ida kaaga ridayo iyo xilliyada markaas uu jirkaaga ku shaqeynayo oo natiijo ah ka helaysid labadooda ma isku si ayay u shaqeeyaan misane mid ayaa aad iyo aad u fiican iyo siyaabaha markaas ay ku kala fiican yihiin muuqaalka daawada idin leeyahay videogan aad iyo aad ayuu idin anfici doonaa waxyaabaha ay xambaarsan yihiin labadan shay iyo sida ay u kala awood badan yihiin oo jirkaaga ay ugu shaqeyn doonaan oo aadna uga heli doontid natiijo degdeg ah haddii aad tahay qof markaas miisaanka rabo si degdega inuu ku dhimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha ku xiran channelkayga Muneza channel 2 meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajayna. fadlan haddii ay tahay markuu wareys channelkayga soo booqanaysid waxaa kaa codsanaa inaad subscribe ii saarto gambaleelkana aad furto si video walba aad soo geliyo oo kuuga soo dhaco amaba aa noqoto daawadaha ugu horeeya. aad iyo aad u mahadsantihiin sida wanaagsanaa mar walba la socotaan kommentiideena quruxda badan leh dacooyinkii dhiirigelinta isugu jir waxaa idin leeyahay jasaakumullahu khayran. soo dhawaada walaalaha cusub iyo walaalihii hore la joogi jiraybo haddaan ugu cusub tahay gacmo furan ku soo dhaw subscribe-ka noo saar like-tan muuqaalka saar asxaabtaada la share garay haddaa hore noo la joogi jirtayna like-ta intaasba waa ii dhiirigelin. aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waxaa idin wadaa laba shay oo aana kala dhicin oo faa'iidooyinka ay leeyihiinna aad iyo aad ay u badan yihiin labadana gaar ahaan loo isticmaalo in miisaanka lagu dhimo iyo waxyaabaha ay jirka u qabtaan iyo waxyaabaha markaasi laga helo oo faa'iido ah. marka waxaan rajeynaa in markaas haddii hore aa uga hesheen aa u isticmaasheen qaybta commentiga ay ugu reebtaan wixii faa'iidaha ka hesheen haddii aadan ka helin amaba aadan isticmaalin horay inaa hadda kadib isticmaali doontid hadduu rabi qadaro. haddaba marka hore waxaa ku hormaraynaa waxay tahay aloe vera juice dacar waaye aloe verada marka aan leeyahay dacartana waxaa ka wadaa midda markaas juiceka oo kale amaba biyaha marka idin leeyahay sida cabitaankii oo kale waa caagaday ku jirtaa aloe verada waxaana fiican mar walba wax marka aad gadanaysid inuu ahaado wax markaas natural ama dabiici ah oo aan markaas qasqas ahayn oo waxyaabo kale aan lagu darin yani wax aan qasqas ahayn waxa waa inuu ahaada 100% inuu dabiici ahaado oo shayga markaas laga sameeyay uu yahay shayga ku magacaaban waxa aad soo gadatay. haddaba aloe vera maxay qabataa? waa aloe vera waxay qabataa faa'iidooyin aad iyo aad u badan. horta marka ugu horeyso waxay horta dhaqdaa calooshaada. qofka bini'aadankaasa wada ognahay wuxuu ku nool yahay qabees soo maaha jirkiisa wuu nadiifiyaa wuu quweystaa biyo ku nadiifiyaa. aloe veradana juice yani aloe vera juice waxay markaas qabataa calooshaada gudaha in ay nadiifiso oo ay ka nadiifiso wax walba oo sun ama bacteria ama wax walba oo ku jiro in ay nadiifiso oo clean ay ka dhigto. waxa kale ka saacideysaa waxay tahay in si degdeg ah ay dheefshiidkaaga uga shaqaysiiso cunto walba aa cuntid in ay ka shaqaysiiso. waxa kale ay ka saacideysaa waxay tahay in markaas aad dareemaysid ay ka yareynaysaa rabaa baahida faraha badan ee markaas ku qabanayso maalinkii ama maxay ahayto maalinkaagii oo dhan baahida badneed aad dareemaysid in ay hoos u dhigto nisbadeedii ay yareyso. taas waa mid. waxa kaleeto ay ka saacideysaa waxay tahay in miisaankaagii si dhaqsa oo ku dago. waxaana la isticmaalaa waxay tahay aloe veradaas yani waxaa laga gataa badanaa dukaamada waxyaabaha naturalka ah lagu gado amaba website-yada oo wax laga dalbado aa ka dalban kartaa. waxaa la isticmaalaa subaxii waxaa sameynaysaa hal qaando oo aloe vera ah waxaa ku darsanaysaa biyo qandaca waa cabaysaa. markaa cabtid muddo nus saac ayaa sugaysaa kadib markii calooshaada ay la falgasho calooshu ku soconaysaa way nadiifinaysaa wax walbo wasakh kaaga jirto dhan ay ka dhigaysaa maasha Allah ay kaaga dhigaysaa waana ka helaysiin haddii markaas aad tijaabisiin. intaas kaliya ma ahan aloe verada waxa markaas ay ku jiro waxay leedahay hal iyo laba insha Allah inta ay kugu sheegaa. marka waxay leedahay calcium ay leedahay waa aloe verada waxa ka hadlaayo waxay leedahay sodium ay leedahay waxay leedahay birta
af Soomaaliga saa u taqaanin waxay leedahay magnesium ay leedahay waxay kale leedahay fitamiinaadka B1 B2 B6 iyo vitamin C iyo vitamin E ayay leedahay oo fitamiinaadkaas dhan ayay leedahay oo waxa kale inta waxay leedahay bakteeriyada markaas jirkaaga u fiican ayay leedahay waxaa jirta jirka bakteeriya xun iyo bakteeriya wanaagsan bakteeriyada wanaagsan oo fiican jirkaaga mar walba inuu helo waaye waa in mar walba ay ku jirtaa waxaa jiro cuntooyin qaar laga helo bakteeriyadaas jirkaaga wayna u baahan tahay oo faa'iido ayay u tahay bakteeriyadaasna waa ka helaysaa waxaa meeshaas ooga baxnaa waxay tahay oloverada waxaa kalentoo idin wadaa ayadana qalka asagana aad iyo aad u fiican yahay qalka asagana waxaa la cabaa subaxii calooshaada oo baahan labadaba waa isku si ayay u shaqaynayaan subaxii calooshaada oo baahan waxaa ku darsanaysaa biyo kulul ku darsanaysaa kadibna waa cabaysaa dadka qaar waxay kusii darsadaan sanjabiil liin dhanaan ay ku darsadaan yacni taas waa ziyaado waay si markaas si fiican oo yacni fastia uu kuugu shaqeeyo wixii markaas cabaysay haddii aad rabtid intaasa ku darsanaysaa laakiinse sidiisa kale caadiyan waxaa ku darsan kartaa biyo qandac ah waa cabaysaa calooshaada way nadiifinaysaa maalinkii oo dhan waxa horta oo lagu leeyahay cuntada ka hor u cabaa waxay tahay calooshaada baahida markaas badneed aad dareemi lahayd ayay ka hortagaysaa markii aad subaxi cabtid bahalkan muxuu ahaa magaciisii qalka waxaa kaleeto oo hoos u dhigaa insuliinka amaba sokortaada uu dejinaa si markaas jirkaaga sokor badan uusan yacni u yeelanin faadka ugu badanin intaasoo dhan waa uu la dagaalaa waxaa kaleeto markaas uu nadiifinaa sida oloveradoo kale waaye jihaasul hadmi ama maxay ahayto dheefshiidkaaga wuu ka shaqaysiinaa cuntada cuntid isla markii yacni way shaqaynaysaa waxaana fiican qalka naftirkiisa wuxuu leeyahay mid natural ah iyo mid markaas aan natural ahayn markii aad gadanayso waa inaa iska fiirisaa 100% inuu leeyahay uu yahay natural inuu yahay dad badanaa waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan Soomaaliya oo kale hadda oloverada way taalaa ayada oo markaas dheer ah oo sida caadiga oo geedka waa isticmaali kartaa midaas haddii lacala ay soo weydiin lahaydeen waa soo jaranaysaa markaad jaratid kadib waxaa kala soo baxaysaa jeelka gudaha ku jiro waxaa ku dhex shiidanaysaa biyaha maadaama ay tahay wax yar oo xabka ay tahay liinta iyo biyihii waa isku daraysaa waa isku shiidaysaa kadibna waa cabaysaa amaba ayagoo kulul korka uga darsan oo ku walaaqane waa ku cabaysaa taasna waa samayn kartaa haddii midaan caagadaha ku jira aa helaysidna waa cabi kartaa qalka wuxuu kaloo qabtaa in uu jirkaaga ka saaro sunta markaas jirkaaga ku jirta ayuu banaanka uga saaraa waa qalka tan hadda aan ka hadlaayo sidoo kale asagana wuu lahaa shaqadan wuu qabanayay oloverada ama maxay ahayto dacarta ayadana sidoo kale waa ay qabanaysay marka waxaa idin leeyahay aad iyo aad ayuu u fiican yahay jirkaagana wax ugu qabanaa sababta subaxi loo cabaayo cuntada ka horna waxay tahay si markaas sokortaada ama insuliinka jirkaaga ku jiro uu hoos ugu dhigo maalinkaagiina aadan u dareemin baahi aad iyo aad u badan jirkaaga uusan u dareemin waxaana ka helaysaa waxay tahay fitamiinaadkaas aan soo wada sheegay magnesiumka sodiumka fitamiinadaas B muxuu ahaay 12 C E kulli waa ka wada helaysaa insha Allah marka waxaa idin leeyahay calooshiina waa idin dhaqmaysaa waa idin soconaysaa miisaanka waa ku dhibmaysiin dheefshiidkiina aad u shaqeynaa dad waxaa jirta cuntada xitaa markay cunaan calooshooda saacado badan ay ku jirayso oo maxay ahayto dheefshiidkooda uusan shaqaynaynin maanta oo dhan daaca quran ama ay soo daacanayaan cuntadii oo sideeda ay soo daacanayaan marka intaasoo dhan daawo ayay u tahay qalka habeenkiina waa cabi kartaa habeenkii markii aad seexanaysid waa cabi kartaa qalka labadan shay ma cabi karaan hooyooyinka nuujinayo hooyooyinka maxay ahayto uur kalena ma cabi karaan maxaa yeelay oloverada waxay xitaa dhalaalisaa dhiigga ayay dhalaalisaa dhiiggaaga wuu shaqeynaa oo dhiiggaaga wuxuu noqonaa mid mar walba kulul oo shaqeynayo ayuu noqonaa marka haddii adigoo uur leh aa cabtid waxaa laga yaabaa ilmihii calooshaada ku jira inay soo dhalaalaan oo dhiig ahaan ay kaaga soo dhamaadaan marka digniin adigoon videoga isku dhamaysanin ha isku isticmaal haddaa muuqaalka hesheen like-ta noo saara
asxaabtiina la sheer gareeya wixii ra'yigiina wixii su'aalo kale aa qabtaan hoos iigu reeba aad iyo aad u mahadsantiina idin leeyahay intaan videoga mid lamid ah ku kulmi doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu